saacadihii la soo dhaafay si weyn ayaa loo arkayay wararka ku saabsan Kenya oo doonaysa inay Soomaaliya ka hesho heshiisyo ay dhankeeda u aragto inay muhiimad ugu jirto waqtigan kala guurka siyaasadeedna ay dhexda ka taagan tahay Soomaaliya gaar ahaan u diyaar garowga doorashooyinka dalkana loo malan yahay waxa kale oo gudaha Kenya ayana ka jirta marxalad siyaasadeed oo adag oo ay sahayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Kenya waxa uu doonayaa Uhuru Kenyatta ay leeyihiin dadka faalaynaya arrimaha siyaasadeed ee gudaha inuu iska dajiyo dhammaan culeysyada siyaasadeed xilli uu u diyaar garoobayo doorashooyinka gudaha ee dalkiisa waana inuu qanciyaa dhammaan ganacsatada jeebweynta taas oo ay ka mid yihiin kuwa qaadka u soo dhoofiya Soomaaliya ee gobolka Miru marka dib loogu laabto xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ma wanaagsanayn tan Kenya markii ay dacwadda baddu gaartay maxkamadda cadaaladda adduunka walwalka ugu badan waxa ay Nairobi ka qabtay inay weydo qaybaha muhiimka ee badda Soomaaliyeed taas beddelkeeda waxa ay dadaal adag gelinaysay sida ay u heli lahayd heshiis dhanka badda ah oo ay la gasho Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cadaadis xoog badan oo la xiriira arrimaha badda kala kulmay dalalka Imaaraadka Kenya UK Mareykanka iyo Norway waxa ayna diiradda saarayeen in heshiis hoosaad la galo si ugu yaraan loo helo wada xaajood labada dal ah oo ku wajahan xagga badda iyo diblomaasiyadda Kenya ayaa dadaal badan ku bixisay sidii ay saameyn ugu yeelan lahayd doorashadii 2016 iyada oo dagaal dhanka dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda la gashay madaxweynihii hore yoolkuna waxa uu ahaa imaanshaha madaxweyne kale oo ay ka hesho wada hadal in laga galo kiiska dacwadda badda laakiin dadaaladaas ayaa guul daraysay markii Farmaajo la doortay Farmaajo waxa uu sheegay bishii Abriil ee sanadkan inay dawlado waaweyn ku cadaadiyeen inuu kiiska dacwadda badda kala hadla Kenya taa beddelkeedana isaga xukunka lagu sii haynayo lana siinayo malaayiin dollar balse wuxuu sheegay inuu diiday dalabkaasi waxaana muuqanaysa waqti xaadirkan inay Kenya doonayso inay hesho hoggaan Soomaali oo damaceeda fuliya dagaal la mid ah kii Xasan Sheekh ay xukunka ku dhaafisayna ay doonayso Farmaajo inay mar kale ku tijaabiso xukunkana ku dhaafiso Nairobi oo garwaaqsan in maxkamadda aan hadda dib looga celin karin kiiska dacwadda badda haddana waxa ay doonaysaa in haddii loo xukumo Soomaaliya ay Kenya wax ka hesho khayraadka ceelasha shidaal ugu yaraan 30% taas oo ay la qabaan qaar ka mid ah dawladaha waaweyn ee saameynta siyaasadeed ku leh arrimaha doorashooyinka Soomaaliya xiisadda cusub ee ka dhex bilaabatay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya hadda xukunka jooga waxa loo arkaa xiisad diblomaasiyadeed oo saameyn ku leh arrimaha siyaasadda ee Kenya waxa ay Nairobi ku faraxsan tahay inay hesho cid jaangoyn siyaasadeed ku sameynaysa mustaqbalka dhow doorashada oo haddana aragtideeda ugu yaraan aan ka qabin shaki weyn talaabada Kenya waxa ay furaysaa albaab ka xirnaa 2 sano ee la soo dhaafay gaar ahaanna inay dib u furto safaaradeeda Muqdisho iyo in la jaangeyn karo gudaha Soomaaliya lacagaha cadaanka iyadoo oo laba dhinacba la marinayo qaadka iyo safaaradda xoga hordhacay waxa ay cadeynayaan in lacagaha qaadka ee hore looga qaadi jiray Soomaaliya hadda muddo bil ah lagu hayn doono Muqdisho marka dib loo bilaabo iyadoo ganacsatada Kenyaatiga lacagtooda ay Nairobi bixin doonto tan Soomaaliya laga aruuriyana loo adeegsan doono arrimaha loolanka doorashooyinka iyo soo saaridda mudanayaasha baarlamaanka dadka la socda xaaladda siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya waxa ay rumaysan yihiin in Nairobi ay u soo banbaxday dagaalka Farmaajo si ay u dhaafiso kursiga madaxweynenimada si la mid ah sidii Xasan Sheekh iyadoo aan haysan hubanti ah in madaxweynaha bedeli doona uu dhankeeda soo mari doono iyo in kale laakiin ay dadaalkiisa ku bixin doonto sidii madaxweynaha hadda jooga xukunka uu ku dhaafi lahaa Transfer Galaxy waxa iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka higaada iyo culumta kale Islaamka